allow yaa isu daayo labadii is arkooto isu jeclaada lilaahi shaydaanka ilaalsho. sheekadan jacayl ee maanta aan idiin soo bandhigi rabo waxa ay la magac baxday xilo iyo xoolo waa. Wow, dumar in aan calaacal mooye lagu helin cudud ama awood sheegasho lagama daalo in aad u dan sheegato haweenka si ay kugu qalbi dabcaan. waa dhab taas. run ahaantii sheekadan jacayl ee la magac baxday xilo iyo xoolo waa waxa ay ka dhacday dalkeena Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. waxay ahaayeen lamaane si dhab ah isu jeclaa, balse inta aan u gudagelin dhab isu jeclaashaha waxaan idinka codsanayaa janalka haddii aad ku cusub tahay in aad subscribe ii saarto si aan kugu mahadceliyo. waadna ku mahadsan tahay. kuwa hore u xirnaana waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin ku xirnaanshaha janalka ee Bowcadde. ku soo dhawaada sheekadii bilowgeeda. waxa uu ahaa wiil xoogsato ah kana shaqaysta magaalada Muqdisho. waxa uu iibiyaa dukaan lagu iibiyo raashinka. run ahaantii maalin maalmaha ka mid ah ayay u timid gabadhan oo socota. gabadhan markii uu arkay wiilka waxa ay taagneyd dukaanka dibaddiisa sare. waxa ayna ku tiri assalaamu calaykum iyadoo aan soo gelin gudaha dukaanka. وعليكم السلام ayuu ugu jawaabay. waxa uuna sii watay hawshiisii, balse wax u soo galay malaha. 10 daqiiqo kadib ayuu wiilkii oo hawshiisii wata waxa u yimiday qof kale oo doonanaya adeeg. goortaas ay timid qofkii kale ayuu dib u soo xasuustay qofkii lahaa assalaamu calaykum ayuu isweydiiyey. haddii uu eegay bannaankii waxaa taagan gabar aan u dhammaystiri karin eegmada, xishood iyo asturnaanba alle isugu daray. run ahaantii waxa uu ku yiri qofkii dambe ee yimid bal sug. waxa uu u yeeray gabadhii markii hore timid ee taagneed bannaanka. waxa uuna ku yiri walaal soo dhawow. waxa ay ku tiri mahadsanid, waan dhowahay walaal. wiilkii iibinaya dukaanka waxaa ku noqotay cajaa'ib. qofkan aan codkeeda korba loo maqal. run ahaantii waxaa saameeyey wiilkii rabitaan gabadha xaggeeda ah. damac weyn ayaa galay. damacuna ma aha mid iska damaaci uun ah oo wax walba oo xun iyo wax fiican ha u kala saarin. damacu waa maxay? damacu waa damac jacayl. waxa uuna isweydiiyey gabadhan halkay ka timid, aadan u arag horey xaafadan. run ahaantii wiilkii waxa uu yiri walaal maxaan ku siiyaa oo u baahan tahay? waxa ay tiraahday waxaan u baahanahay in aan macaamil noqono. jacayl kala awood weyne kiil ka dhigay qays laylana agseexsha anaygu habuurmo
adkaysto ika asteeyo igu kayryahay la soco qaybta labaad haddii aad ka heshana like ayaan ka arki doonaa